بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى مسألة إن يرى واضح نفت ولا لهي مغليسة. مسألة سؤال ليلة نصف الشعبان وليلة القدر maxay kala yihiin labadaa habeen waxa ay kala yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan waa noogu caddeeyey nebigana sunnada waa noogu bayaamiyey laakiin waxaa muran ka taagan nisfi shacbaan leylat alxugun ay dadka ay yidhaahdaan alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam. ilaahay kitaabkiisa wuxuu nagu yiri maa faradnaa fi lkitaabi min shay, kitaabka wax looga tegay midna ma leh. sunnada nabigana sala allahu alayh wasalam waa bayaankii kitaabka weeye, isna wax looga tegay ma laha. waxaa isweydiin leh fadli ma leedahay nisfu shacbaan, leylat nisfi shacbaan. nacam, ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha iyo amkinada iyo awqaadda yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu si gaar u doortay baa jiro oo fadli gaar uu siiyey. magaalooyinka kadaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala magaalada maka waa ka fadilay yaa magaalooyinka kale, waa umulqura, waa caasimadaha hooyadood. salaadii lagu tukado waa 100,000 sala siduu nabiga noo tilmaamay sala allahu alayh wasalam. waa 100,000 oo salaad oo ajir weeye. acmaasha lagu sameeyo maka waa 100,000 weeye. idan magaalooyinka ayay u fadli badantay. maalmaha jimcada u fadli badan, yaa bilaha bil ramadaana u fadli badan. habeenada 10 habeen ee ugu dambeeya ramadaanka u fadli badan. 10 habeen ayaa haddana hal habeen si gooni looga doortay oo leylatul qadarka oo ilaahayna qur-aanka noogu tilmaamay. ilaahay subxaanahu wa tacaala yiri inaa anzalnaahu fi leylati alqadr, waa dejintii qur-aanka marka laga hadlayay. leylatu lqadri khayru min 1000 shahr, tanazalu almalaa'ikatu walruuxu fiiha biidni rabbi min kulli amr salaamun hiya xataa madlaci alfajr. yacni ummadda nebi maxamed ummadaha waa u cimri yar yihiin siduu nabigeena tilmaamay, acmaaru ummatii maa bayna 60 wa 70. cimriga ummadayda 60 iyo 70 buu u dhexeeyaa buu yidhi. marka ummadihii hore 1000 sano oo maaragtay fii sabiilillaah loo taagan yahay, qof u taagan ayaa dhici jirtay. marka yacni ummaddiisana nabiga sala allahu alay wasallam aad bay cimrigooda u yaryahay soo maha. marka tacwiid haddii aad ilaahay ku haleysiiyo leylat alqadarka, oo weli xadiid nabiga sala allahu alayh wasalam uu leeyahay leylat alqadr man qaama leylat alqadr iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih. ninkii u istaago isagoo rumaysan qiyaam oo maaragtay xisaabsanahayana yaa habeenkaa gufira lahu maa taqadama min denbih, wixii dembigiisii horumar oo dhan baa la cafinahaya. oo kamaa qaala nabiy sala allahu alayh wasalam. waa fadli gaara oo ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey. ليلة القدر
إلهي سبحانه وتعالى ما لبدن القرآن كتل مامي سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قرآنك ليلة القدر يا ربي سبحانه وتعالى تلمامها هي مركا كا مرن كما تاغنا أما ليلة الحغن وإدتك أنت بدن إليهين ونصف الشعبان يا كنا لحرينا كنا لودن بالدافع كنا لوحينا إذن أحاديث بدن أيا جرته أحاديث تاس نصف الشعبان كا هاد ليس وحلا استدلون كرو يوحل استدلون كرو ضعيف أجرة قار لقادن كرو يقارن لقادن كري محايا لشيء كذا وحي لقت لقى ليس إسرائيليات إسرائيليات أي لقت لقى لي مركب حياة بدن ودتك عادة كدكتين ما ركتي إن أحاديث ما أحاديث ما أحاديث مشهورة أحاديث مشهور لكن أن أصل لهن باجرة لكن دتك أبدينهم مركا نعم فضل قاروا الله هاي لكن وحا اسويدين له هبينك نصف الشعبان كلا بركي شان يتمنك شعبان wax maaragtay soo arooray cibaado gaara salaad ha noqoto soon ha noqdo qiyaam ha noqdo ma jirtaa wey marka culimada marka meesha la soo khilaafsan tan wey ma jiro wax xadiis saxiixa oo nabiga ka sugnaaday maaragtay oo cibaado u gaar ah habeenkaas nisfu shacbaan ma jiro ونبي واسومي جري أو ماركت صلى الله عليه وسلم إلا صحابة قال أي يرهدان يا رسول الله يعني أن وحن أرقنا إن أنت بدل أتسومي ست شعبان مركز وحيريش أن وحود حياة رجب يا رمضان مركز أنت بدل والله ضيعه ولا إلا مركز سادرتيد ayaan rabaa inaan nooleeyo teeda kalena turfac acmaasha ilaahay baa loo bandhigaa oo sanadki sanawiyan hadda acmaasha mina usbuuci mar ayaa la bandhigaa waa khamiis sanadkiinana mar waa maaragtay nisfu shacbaan waxaan jeclahay in acmaashayda ilaahay la hor dhigo waana saa'im anigoo sooman waa axaadiista la istidloodo wey anigoo sooman in ilaahay acmaashayda loo bandhigo ayaan jeclahay taas waa mid weeye إذا مرك حديث كاسولي وحورينا هي أبو داود النسائي وابن ماجه أيا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في الشعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين الرجب والرمضان وهو الشهر ترفع فيه أعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا سائم حديث كاس الباني با صحيحنا هي مركا أن حديث كلا وحجره إلهي إنه samada adduunyada u soo dego isagoo eegahaya bini aadanka ma garatay ilaahay waa u dembi dhaafaa wixii mu'miniina ilaa dadka waa u dembi dhaafaya ila almushrik walmushaaxin iyadana xadiiska saas inuu yahay ayaan jeclahay
mushrik mutashaaxin ilaahay u dambi dhaafi maayo. waayo mushrik hadda ilaah buu wax la wadaadiyey. mutashaaxin waxa weye labada aan isu uurfiyoobeen oo caloosha xumaha isu haysa, ma garati, kuwa ilaahay subxaana watacaala dhaafi maayo. weli acmaashooda taa ilaahay ilaahay wuxuu yidhahda kuwa ilaa ay kasoo heshiiyaan camalkooda ku haya, xagga hoose ku haya. marka idan xadiiskaasna iyadana waa jiraa. marka axaadiis loo istidloodo fadliga ay leedahay iyo kuwa aan la istidloon karinba intaba waa jiraan. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. xugunna ilaahay subxaana watacaala maqaadiirtiisa looxul maxfuudku rabbi uu ku wada qoray. qalinkii markuu abuuray iyo looxii yiri qalinka qor buu ilahay yidhi, maxaan qoraa? wixii ahaan lahaa, wixiiba ahaan lahaa. ma garati, wax walba marka meeshaasay ku qoran yihiin. idan looxul maqaadiir looxul maxfuudka ayaa wixii sanadkan dhici lahaa ee qornaa ayaa samada adduunyada loo soo dejinaya oo malaa'igta lagu howlgelinaya. oo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. ama qadarka ilaahay subxaana watacaala mar hore ayuu rabbi wax walba qadaray. waxay ahaan lahay jannoy, naaray, ma garati, arsaaqay. taasna waxaa daliil kuga ahaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam oo yujmacu maru fii batni ummih. qofka waxaa calool hooye lagu ururiyaa, lagu jamciyaa 40 nutfa, 40 calaqa, 40 mudqa, ma garati. 40 uu dheecaan yahay, 40 uu xinjir yahay, 40 uu cad hilib yahay. kadib ilaahay wuxuu amraa malaga inuu u qoro 4. horta ruuxda lagu afuufaa, kadib u qor 4 risqigiisa, ajashiisa, iyo inuu ahlu janno yahay, inuu ahlu naar yahay. markaasaaba la qorahayaaba. marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. shayga lagu murmahayo waa inuu asal leeyahay oo kitaabka iyo sunnada meel uu dhabarka inuu ku hayo inuu leeyahay. dhabarka meel uu ku hayo inuu leeyahay oo kitaab iyo sunno. nacam. rabbi wuxuuna leeyahay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaati waalard uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi alsaraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin. dadka in ilaahay subxaana watacaala ma garatay wuxuu jecel yahay kuwa wanaagga samaynahaya, kuwa qarinahaya caradooda, kuwa dadka cafinahaya, ma garatay. rabbi subxaana watacaala si hoose iyo si muuqatana wax u bixinaya rabbi. aladiina yunfiquuna kuwii bixinahayay xoolahooda fi saraa'i qarsoodi, wadaraa'i muuqaalba, waalkaadimiina qarinahaya, waalkaadimiina algayda caradooda qarinaya, waalcaafiina can innaas dadkana cafinahaya. wallahu yuxibu almuxsiniin. ilaahay wuxuu jecel yahay inta wanaagga samaysa. allah naga mid yeelo. marka insha allahu tacala waxba yaan lagu murmin leylat alxugun nisfu shacbaan. wax horta cibaado gaara, salaad iyo qiyaam iyo oo soo arooray fadli waa leedahay. oo axaadiista qaar baa laga fahmahayaa fadligeeda. ama cibaado gaar ah oo loo khasisay maaragtay salaad iyo soon iyo ma jirto. ama soonka nisfu shacbaan soonkeeda asaluu leeyahay min ayaami albiid. qofka hadduu 13, 14, 15 sidaa ku soomo wuxuu leeyahay maaragtay asal ayuu leeyahay soonka isaga ah. laakiin uma qaas aha 15 shacbaan keliya, balse min ayaami albiid. ninkii soomi jira waa soomahaya. teeda labaadna qofkana maaragtay waa soomi karaa bisha inteeda badan siduu nabiga sala allahu alayh wasalam uu samaynahayay. bas waxaa la diidahayaa inaad ramadaan jirkiioo maaragtay xoogaa jilcay, tabartii maaragtay naaqusantay inaad qaabishid. waxaa la rabaa 15kan dambe inaad u diyaargarowdid ramadaan, inaad u diyaargarowdid oo nashaad iyo energy adigoo haya, ma adigoo already jirkii soo dilooday inaad ramadaan aad ku daba qabato. wallahu aclam.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. وحان أصيب فمن الله وحان كف مني ومن الشيطان، وأسأل الله يغفرني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.